saaxiibada soo dhawaada oo markale barnaamijkan rayuurunta dadweynaha magaalada Burco halka dadweynaha soo burdhaa biiriya anigu waxaan Xamdi Cabdilaahi dadweynaha magaalada Burco ayaan weydiin doonaa maxaabiista shalaalka ay soo lagu sidaayay si arkayeen nala daawada oo soo dhawaada waxay ku horaansa maxaabiista shalaalka heer soo sidaayay calanka buluga ku xidhnaa bal aragtida soo arkaysa aragtida waxaan arkay walaal horta marka hore waxa weeyaan maxaabiis la sidaayay ma jirto shay laata qof oo qaar dhibirka yihiin qaar ay reer miyi dayoobay yihiin oo galay bay ayaa isku sawiray xamsana waxa weeyaan socdaalkiisa uu la socdaal ku yimid socdaal fashilmay weeyaan Soomaaliya waxba ma tarin reer Soomaaliya waxba ma tarin Soomaaliland waxba yeelin marka aragtida aniga waa nooca dad xanuunsanaya oo dhibira iyo dad waxa weeyaan xanuunsanaya oo dhibira ka iyo dad shacab oo reer miyiga ayaa isku sawiray oo calanka u xiray marka waxa weeyaan saas aragtida ila tahay in Soomaaliland wax yeelayna maaha nin Sool wax u tarayna maaha nin waxa weeyaan Soomaaliya wax u tarayna maaha waa ra'iisul wasaaraha yimi waxa weeyaan socdaal fashilan weeyaan qad ka baxnaan hadda soo maxaabiis leeyahay heer Soomaaliland baa laga sidaayay qayo Sool la aragtida soo arkaysa hooyo waxaan u arkay horta marka hore waa salaamantaa adiga iyo TV-gaaguba waxaan u arkay maxaabiista la sidaayay maxaabiis ma yahay dad geeljireyaal bay ahayd geeljireyaal waliba reer abay ahayd reerka leedahay habar jecel dagaalku dhinacooda ka socdo habar baa kaga jirtay waxaan sheegayaa oo aan boogaanayo habar jecel leeyahay u dagaal u diyaar garooba maxaabistiini waa la haray maxaabiis qadadaysan bay ahayd rag la sidaayay geeljireyaal qadadaysan bay ahaayeen dagaal aan u diyaar garowno heer Sool iyaga doonayeen isku diraan heer Soomaaliland sida gaarka u sidaayay maxaabiista maye isma lahe iyagu ninka leedahay Xamse Cabdi Barraayimi wuxuu doonayaa itiraafka Soomaaliland inuu ku calqadeeyo inuu yiraahdo Soomaaliland waa naga gacanta ku hayna wax Soomaaliland ay gacan ku hayaan ma jirto rag iyo dumar laba jir iyo 60 jir iyo 70 jir dagaalku halkii barigii ee dheerkii la galay Maxamed Siyaad Barre lagu riday baan ka taaganaa haddaan nooy reer Burcana rag iyo dumar dagaal baan u diray aan ku soo xasaa ka sharkay surwaalkayga oo xidhanaya oo dhaqaaqaya waxaan ku boogaadinaya habar jecloy sarkaalkiini wuxuu ku jiraa laascaanood saraakiishii kale habar jeclana way ku jirtaa waxa loo rabay waa filin kale wixii la sheegay la lahaa waxa isbedel baa imanaya isbedel ma jiro waynu ibsanaa war ma iska dhicina cadawga ma u diyaar garowna dagaal hafa ma waxa qoraasa maxaabiista heer Sool sidaayay inta arkaysa niyow maxaabiista horta la sidaayay sidaynta maxaabiistu ma xuma maxaabiista markii la sidaynayo waxay leedahay dee qaynuun iyo sharci marka horta waxyaabaha koowaad khaladka waxa ah in maxbuuska loo xiro dee waxa weeye calan aanu doonin oo qadiyadiisa aanu doonin haba dhacdo deyntan waa sawir un bay ahayd maxaan ku dhaahdaa ra'iisul wasaaruhu deyntan ilaa nin weyn oo yimi oo aan waxaan ku dhaahdaayay dee wax la taaban karo aan qabanin dee waxa weeye isagay kamaradu qaban lahayd marka intan waa la iska goyn bay marka jooda gaaro kala intaas un bay ahayd waxa weeye maxaabiista markay xamar geeyaan dee haso markay keenaan waynu ka meereynaa hadii ilaahay ka dhigo wixii lagu sameeyay calanka Soomaaliland baynu gelinaynaa caalamka waxaynu sheegaynaa waxa weeye in maxaabiista lagu la kacay waxa weeye dee xadgudub oo waxa weeye calanaanay doonayn waxa weeye loo geliyay halkan waxaan kale oo baaq uga jeedin lahaa dadweynaha reer Soomaaliland waxa jira liis la soo dhigdhigayay oo beela iyo wax noocaas waxa weeye haday macalisku beel yihiin dadka la keena waxa weeye waa maxaabiisteen qadiyadeennuna waxa weeye waa hal meel weyn waxaasna waxyaabihii dagaalkii gooja cadde kala qaybinta bulshada waxa weeye lagaga faa'iideystay weyn inagu markaynu sii daynayno maxaabiistooda waxa weeye googaradna u xidhi mayno calan kalena u xidhi mayno keena Soomaalilandna dee waxa weeye dee tawxiidkii baa ku qoranba u xidhi mayno waxa weeye kay doonayaan dharka caadiga ah ee bilaadanka deexdhe ee caadiga waynu xidhaynaa kunima qaadan mayno inagu dad goba baynu nahay maxaa kulay waxa weeye waa shay leen ku yaqaanay gobanimadu marka waxa weeye
dadka reer Soomaaliland dhammaan waxaan waxa weeyaan u kala dardaarmaya inay midoobaan oo aan siyaasad ahaan loo qaybin maxaabiista halka ay heer sool ay sii daayeen saad arkaysaa arrintan horta arrintaasi waa arrin marka runta laga hadlaayo Soomaaliland attack cad oo ka soo wajahday dawladda koonfureed taasina waxaan u malaynayaa inaga waxba inoo tartay ee waxba inaga may qaadan waayo waxa la yiri qayrkiin loo xiro soo qoyso adiguna teetal aynu ka sarreeyno Puntland ismaamulkan yaraynu ismaagayno weeye teetalka ra'iisul wasaaruhu inoo sameeyay dadku ra'yi ahaan waxay u arkaan in inaga ay wax inoo dhimayso laakiin inagu teetal baynu ku helay maadaama ay maxaabiisteeni dawladda Soomaaliya ay leedahay nabadgeliyo waxaanuna leenahay Soomaaliland oo dhan tani waxay u tahay 10 lesson ay ugu diyaar garoobayso sidii wadanka aynu u difaacan lahayn ama aynu isaga celin lahayn cadawgeena taasaanu arkaa talabaad waxaan oran lahaa Soomaaliland go'aan hay iska taagta arintani cad oo ay ugu diyaar garoobayso kuna ogaanayso in weerar cad Soomaaliya nagu soo qaaday oo faragelina jawaabteeduna si muhiim ah inaga ay inoogu taala maanta maadaama ay arintaasi dhacday ujeedada horta heshiis maxaabiistay soo deeyeen maha maxaabiistii dagaalka lagu qabtay aynu ku kala inaga maqay maxaa dhahdaayeen ay dagaalka ku qabteen waa dad xanuunsanayo wadooyinka qaarna ay ka qabteen qaarna horeba meesha u joogeen dadkii rasmiga ahaa ee dagaalka Soomaaliland lagaga qabtay maaha kaasna wax macno wala dad iyagu ay dhibsadeen oo xanuunsanaya weeyana ma hadda muhiim ah Abdullaahi Nuur aad ma santaay bal aragtida maxaabiistii heer sool sii daayeen saad arkaysaa anigu aragtidayda gaaban waxaan u arkaa ujeeddo gaar oo reerkan daarood la yidhaahaa ay 3 gobol iyo wax ka badan baarlamaankooda inay kula tartamaan xukuumadda dambe ayuun baan u arkaa ujeeddada ninkan meesha u yimina sidii uu Soomaaliland ay soo dhex gali lahaayeen oo kala furfuri lahaayeen ayuun baan iyana taa u arkaa priority-gu waa inta maxaabiistana calanka Soomaaliya loo xidhay sadarkiis waxaan u arkaa sidii ay dhexdhexaadan Soomaaliya ugu heli lahayd ummadan reer Soomaaliland mana aha mid reer Soomaaliland ay taa doonayaan inana dad maxaabiisteen Itoobiya u dhiibeen hadii halka xaalada iyo ka Soomaaliland loo xidhay waxaan u arki karaa inaguba qaar baynu ku haynay calaamadeenna inuu xidhayn waxba sheegi maayo dad aad u liitay bay ahaayeen dad waxaan ku ciidanka qaranka laga qabtay bay ahaayeen dadka waxa la doonayaa in loo duceeyo maal loo diro waxba laguma sii tiigsan maayo dadkaasi waa dadkeenni saraakiisheenni reer Soomaaliland xukuumaddaana taasi u taala marka meel kasta oo la geeyo inay ka war hayso laakiin anigu waxaan ku sheegayaa Suudaan baan ahay Suudaan beesha Biixi Cumar baan ahay Suudaan reer Caymeeda baan ahay waxaan leeyahay Suudaan dadka diinta ugu yeedhay baan nahay waxaan leeyahay habar jeclo oo dhani daa'irka qaranka way sheegtay laakiin waxa la doonayaa dad Ilaahay dadka ku xidha Ilaahayna musharaada ka qaata kuluj fi sabilillaahina dadka ugu yeedhay haabti xoogeeni haabnaareed baa lagu shuba in diinta lagu shubo oo kuluj fi sabilillaahi loo diro oo dadka wax loo soo saaro ayaa loo baahan yahay intaas aan ku dhamaynaa assalaamu calaykum warahmatullaahi